muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay jasiirad aad u yar oo ay ku nool yihiin dad aad u badan. haddaba ku soo dhowaada muuqaalkani xiisaha badan. jasiiradani waxaa la yiraahdaa Santa Cruz de la Sierra. jasiiradani waxay ku taalaa Colombia, wuxuuna balaceeda la mid yahay garoonka kubadda cagta. jasiiradani badanaa lagama helo biyo nadiif ah oo la cabo iyo koronto. jasiiradani waxaa ku yaala 115 guri, waxaana ku nool in ka badan 500 oo qof. qof kasta oo jasiiradani ku nool waxa uu leeyahay naanees oo ay dadkoo dhan ugu wacaan. haddii la isbarbar dhigo magaca iyo naaneesta, waxaa awood badan naaneesta. jasiiradani laguma tagi karo wax aan doon ka ahayn. meeshani waxaa dhisteen shucuub la yiraahdo murjaaniyiinta iyo dad kalluumaysta ah. kadib markaas, jasiiradani muddo 150 sano kadib, balaceedu wuxuu u gaaray 1 hektar. markii uu jasiiradani qof ka dhinto, waxaa hooygiisa lahaanaya carruurtiisa. dadka ugu caansan jasiiradani waxaa ka mid ah Miguel de Filipo Morelo, wuxuuna leeyahay 23 carruur, waxaana u kala dhaleen 4 xaas. jasiiradani waxa ay leedahay 4 waddo. meeshani kama helaysid wax gaadiid ah, xataa mootooyin. laakiin arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay dadka ku nool meeshani 60% waa carruur. sanadka markuu ahay 2017, jasiiradani waxaa ku dhashtay 7 cunug, midna kama dhimanin. jasiiradani waxaa ku yaala iskuul ka kooban 3 dabaq, waana dhismaha ugu dheer deegaankani, waxaana jooga 12 macallin iyo 170 arday. jasiiradani waxaa ku yaala geedo aan badnaynin oo iska yar. meeshani uma badna cayayaanka. qoysaska oo dhan waxay haystaan doon, waxayna u isticmaalaan in ay ku kulmaystaan iyo in ay qashinka iskaga qaadaan ama in ay ku tagaan qabriyada. waxaana meesha ku yaalo 1 matoor oo koronto ah iyo 2 soolar, midkaasoo dadka ka helaan korontada. laakiin waa xilli gooban, galbihii iyo xoogaa duhurkii. sidaas daraaddeed meeshan ma lahan daryeel caafimaad ah. hal dhakhtar ayaa imaada bishii 3 mar. xilliga kuleelaha, jasiiradani waxa ay noqotaa xaaladeeda mid iska adag, waxaana dabiici ah inaad aragto dadka oo biyaha ka qaadaya meel ka meel. biyaha meeshaas waxay ka yihiin kuwo qiimo leh. dowladda Colombia ayaa u soo dirtay gaari ay saaran yihiin biyo nadiif ah, waxaana laga yaabaa in ay ka soo daahdo ku dhowaad 3 isbuuc. dadka deegaankani ku nool qaarkood waxa ay ka shaqaystaan dabashada xayawaanada kala duwan ee badda. intaas kadib, jasiiradani waxa ay noqotay mid caan ah oo ay dadka u soo dalxiis tagaan. dad badan oo rabaan in ay bartaan jasiiradani aadka u fiican, waxa ay bilaabeen dadka in ay ku soo damaashaadaan waddooyinka. waxaana jiraan kooxo isku xilqaamay inay ilaaliyaan nadaafadda deegaanka. waxaana jiro in ka badan 30 carruur iyo dhalinyaro oo isku magacaabeen badbaadiyaasha shucuubta murjaaniyiinta, waxayna u shaqeeyaan si maalinle ah si ay u nadiifiyaan badda una badbaadiyaan noolayaasha. si kastaba ha ahaatee, meeshani kama jiraan falal dil ah iyo dhibaato, inkastoo ay ka maqan yihiin sheeyo fara badan. sidaas ay tahayna, dadka waxay dareemayaan inay ku nool yihiin nolol qurux badan. ra'yigaada maxay tahay sirta? aniga iyo adigaba waa ognahay meesha ay ka liidato jasiiradani. haddaba saaxiibkaygiyo, ma jeclaan lahayd inaad booqato meeshani? nagula wadaag qaybta faalooyinka. haddii aad ka heshay muuqaalkan, like dheh, nagu soo biir oo subscribe dheh, lana wadaag asxaabtaada muuqaalkani. waxaan kulmi doonaa fiidiyowga xiga insha Allah. mahadsanid.